ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta waxaad ku soo dhawaataan channelkeena Simcode School Branch 2 Official Inolwen. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay Horrifying Conversation wada sheekaysi waabsi ah. What is your aim of appearing ahead of me? What is your aim? Waa maxay ulajeedkaaga of appearing ahead of me aad horteyda uga soo muuqanaysid? I have nothing to tell but to beat you like blue and white and to show your colors. I have nothing to tell, wax la sheego ma hayo, but balse to beat you inaan ku garaaco like blue and white sida buluug iyo cadaan and to show iyo aanu ku tuso your colors kalaradaada. No wonder how you are pointing the colors, cause I have already known that you are a painter, but who is the one brought you here and losing his money to you? No wonder, layaab ma lahan, how you are pointing sida aad u tilmaamaysid the colors kalarada, cause maxaa yeelay I have already known, mar hore ayaan ogaa that you are a painter, inaad tahay rinjiile. But balse, who is the one, yaa waay qofka brought you here, uu halkan ku keenay, and losing his money to you, uuna lacagtiisa kugu luminayo. Amazing, you came here yesterday as you were nomadic and nothing, then you are tantalizing me as your quavel. So dear, don't compel me to light your past loving history to the classmates. Amazing, layaab, you came here yesterday. Shalay ayaad halkan imaaday as you were nomadic, adigoo ahayd reer baadiye, and nothing, iyo aadan waxba ahayn. Then you are tantalizing me, kadib aniga aad idaadansanaysaa as your quavel sida facayo oo kale. So saa darteed, dear qaali, don't compel me, hay uu qasbin to light your past loving history, inaan soo ifbixiyo taariikhdaada qosolka lahayd to the classmates, ardayda isku fasalnahay inaan usoo ifbixiyo. You can't see your run out and whole shoes, so you are talking like a man. I think you are not booked like a human in the world. You can't see your run out and whole shoes. Ma arki kartid ka waxaaga dhammaadka ah ee haddana duleela. So sidaa darteed, you are talking, waxaad u hadlaysaa like a man, sida nin oo kale. I think, waxaan u malaynayaa, you are not booked, laguma liisgaraynin, like a human, sida bini aadan oo kale, in the world, adduunka.